Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka sheekayn doonnaa qaar ka mid ah sheekooyinkii Juxa, isla markaana ah kuwii ugu qosolka badnaa. Balse inta aynaan bilaabin, haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xidhan channelka, soo dhowow mar kale. Haddii aad ku cusub tahayna, fadlan nagu soo biir adiga oo taabanaya like, subscribe, jalaskana furanaya. Hana hilmaamin inaad saaxiibadaa la wadaagto. Juxa xaaskiisii ayaa dhimatay, kamana uu murugoonin geerida ku dhacday. Muddo yar kadibna waxaa dhintay dameerkiisii, markaasuu aad u murugooday. Dadkii ayaa waxay weydiiyeen sababta uu u murugoon waayey marka ay xaaskiisii dhimatay, isla markaana uu u murugooday markuu dameerkiisu dhintay. Juxa ayaa idhi, markii ay xaaskaygu dhimatay, qaraabada iyo jaarkuba waxay igu yidhaahdeen, waxba ha welwelin, waxaad heli doontaa mid ka fiicane. Markuu dameerkaygu dhintayna, cidna imay odhan ha welwelin, markaama waxaanan la murugooninba. Juxa oo maalin waddada maraya ayuu qodaxi mudday. Markii uu gurigiisii yimid, ayuu qodaxdii iska saaray, markaasuu Ilaahay mahadiyey. Gabadhiisii ayaa weydiisay maxaad Ilaahay ugu mahadinaysaa, markaasuu ku yidhi, waxaan Ilaahay ugu mahadinayaa in aanan xidhnayn kabahaygii cusbaa, haddaan xidhnaan lahaana qodaxdu way kala jari lahayd. Juxa oo maalin geed saaran oo mishaar ku jiraya laangeedka ku taalla ayaa waxaa arkay nin waddada maraya. Markaasuu ku yidhi, Juxow iska jir, haddii kale waad ka soo dhacaysaa. Juxa ayaa ku yidhi, oo waayo maxaan uga soo dhacayaa? Ninkii ayaa ku yidhi, laanta meesha aad ka jaraysaa waa meeshii ay geedka kaga taallay, ee iska jir, haddii aad laantaa goyso dhulka ayaad ku soo dhacaysaa. Juxa muu rumaysan waxa uu ninku u sheegayey, ee shaqadiisa ayuu iska sii watay ilaa ay laantii la go'day oo uu markii dambe dhulka ku soo dhacay. Juxa ayaa yaabay, waxa uuna mooday in ninku uu wax walba og yahay. Markaas ayuu ka daba cararay ninkii oo uu ku yidhi, warniyow adigoon wax walba oge ee ogaa in ay laantu ila soo dhacaysee, bal waxaad ii sheegtaa goorta aan dhimanayo. Ninkii ayaa ku yidhi, waxaad dhimanaysaa marka uu dameerkaagu ciyo. Juxa oo rumaysan hadalkii ninku uu u sheegay ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa ciyey dameerkiisii. Kadibna waxa uu yaqiinsaday in uu dhimanayo. Markaasuu kafan isku duuduubay, isaga oo waddada yaalla oo aaminsan in uu dhintay, ayaa waxa waddada soo maray nin socoto ah. Markaasuu weydiiyey, xaggee ayaa waddadan loo mari jiray? Juxa ayaa ku yidhi, war anigu imika waan dhintayee, markan noolaa xaggan ayaa loo mari jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Juxa waxa soo martiyey nin ay saaxiib ahaayeen. Kadibna si fiican ayuu u sooray oo uu soo dhoweeyey. Ninkii martida ahaa markii uu sii tagayey, ayuu Juxa waxa uu u hadiyeeyey bakayle. Maalin dambe Juxa waxa soo martiyey niman badan oo wada socda oo ahaa jaarkii ninkii bakaylaha siiyey, waanay isku sheegeen cidda ay yihiin. Juxa sidii caadada u ahayd ayuu u sooray martidii, kadibna uu macasalaameeyey. Maalin dambe ayay haddana soo martiyeen jaarkii ninkii bakaylaha. Iyaguna sidoo kale ayay isugu sheegeen cidda ay yihiin, iyaga oo Juxa ka sugaya in uu sooro oo uu si fiican u soo dhoweeyo. Juxa waxa uu u keenay biyo kulul oo keliya, markaas ayuu soo hordhigay. Nimankii martida ahaa ayaa iyaga oo xanaaqsan Juxa weydiiyey, Juxow waa maxay waxani? Juxa ayaa ugu jawaabay, waxa weeyaan maraqii bakaylaha, jaarkii ninkii bakaylahow. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Juxa sayladda ka soo iibsaday dameer. Isagoo dameerkiisii wata ayay laba tuug ka furteen xadhiggii dameerka. Labada tuug mid dameerkii ayuu kaxaystay, kii kalena xadhiggii ayuu qoorta gashaday si uu Juxa u mooday inuu dameerkii wato. Waxa ay socdaanba ninkii xadhig uu ku xidhnaa ayaa daalay. Kadibna Juxa oo moodayay inuu dameerku gaabinayo ayaa xadhiggii xoog u jiiday si uu hore ugu dhaqaaqo. Xagga dambuu soo eegay, mise waaba nin waxa uu jiidanayaa. Juxa ayaa ku yidhi, oo goorma ayaad bini'aadan noqotay? Ninkii ayaa idhi, mudana waxaan caayay hooyaday, markaasay igu habaartay in aan dameer noqdo. Nin wanaagsan mooye cid kalena in aanay i xorayn karaynin, ee markaan gacantaada soo galay waanigaa qof noqdayee i xoree. Markaasuu Juxa iska sii daayey oo uu xoreeyey. Maalintii dambe ayuu Juxa isla dameerkii ku arkay sayladda, markaasuu ku yidhi, waarma mar labaad ayaad hooyada cayday oo aad dameer noqotay. Markan ku iibsan maayo oo ku xorayn maayee, sidaada ahow.
maalin maalmaha ka mid ah Juxa oo wadada iska taagan ayaa waxa dhirbaaxay nin. Juxa markii uu xanaaqayna ninkii waxa uu ku yiri war waan kula kaftamayay. Juxa hadalka muu gurin waxa uu codsaday in ay garsooraha iskula tagaan. Garsooraha iyo ninkuna saaxiib ay ahaayeen oo kalsooni ayuu halkaa ka qabay. Markii ay garsooriyay u tageen, garsooriyay ninkii waxa uu ku xukumay in uu 20 diinaar oo ciqaabis ah Juxa siiyo. Ninkii waxa uu yiri waan soo qaadayaa ee hal ay sugo. Markuu cabaar maqnaa ee uu Juxa in badan sugayay ayuu inta uu soo kacay ayuu dhirbaaxay ninkii garsooraha ahaa. Markaasuu ku yiri 20 diinaar markuu ku keeno adigu iska qaado.